daawadayaal waxaan halkan idinku soo gudbinayaa qaabkii uu dhacay dilkii shirqoolka ahaa ee lagu fuliyay madaxweynihii dalka Masar Anwar Saadaat taariikhdu markii ahayd 6 Oktoobar sanadkii 1981 iyada oo lagu guda jiro xuska munaasabadda 6 Oktoobar oo sanad kasta lagu xuso dagaalkii 6 maalmood socday ee dhexmaray Masar iyo Israel. dagaalkaasi oo ay Masar dib ugu qabsatay jasiiradda Mooda Sinai waxaa mar kaliya istaagay mid ka mid ah baabuurtii militariga ee ka qayb qaadanaysay munaasabadda, waxaana ka soo degay rag hubeysan oo rasaas ooda kaga qaaday Anwar Saadaat ayaa loola cararay cusbitaalka, balse waxa uu ku geeriyooday halkaasi wax yar kadib, waxaana ku dhacay 37 xabadood. shirqoolka lagu khaarijiyay Anwar Saadaat ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen koox la odhan jiray Islamic Jihad oo ahayd koox islaamiyiin oo mayal adag oo diidanaa heshiiskii Camp David ee Anwar Saadaat uu la galay dalka Israel sanadkii 1979. heshiiskaasi oo ay Masar ku aqoonsatay jiritaanka dalka Israel. waxaa isla goobta lagu khaarijiyay qaar ka mid ah raggii ka dambeeyay dilka Saadaat, halka 3 ka midana gacanta lagu dhigay. kadib waxaa dalka qabsaday Maxamed Xusni Mubaarak oo loo doortay madaxweynaha Masar, isagoo xilligaasi ahaa madaxweyne ku xigeenkii Anwar Saadaat.